halkani waa deegaanka Geed Deeble oo 320 kilomitir jaada dhanka waqooyi kaga beegan Hargeysa waxaana maanta si rasmi looga daafurayaa wajigii koobaad ee mashruuca biyo balaadhinta Hargeysa oo loogu talagalay in qaybo badan oo kamid ah shacbiga ku dhaqan Hargeysa ay biyo ku filan ku helaan xilligan. madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay halkan diyaar ku noqdaan si qayb uga noqdaan daafurka mashruuca. She said you